haddii nimanka waxa ku heshiiseen sida loola heshiiyay iyo sida loo dalbado iyo taxdiirul arwaax iyo waxaasna waan ka hadli doonaa insha Allah haday naftiigu sinto 10keenu ku jiri doonaa haddii in yar oo talaaba ah nimankaas aad wacadkaadooda dhigateen aad ka baxdo خلاص dagaal bay kugu qaadayaan laba yani sheeko oo xaqiiqo oo dhacday baan idin ka warramaya masaajidkan aynu ku jirro masaajidka calmataan Soomaa guryaha nimanka albeerkadu maxamed ka dhisan tahay guryo yar yar oo gaagaaban bay ahaan jireen baaniyaaladii waxaa jiri jiray markaa nin hindiya baaniyaal ah oo wuxuu samayn jiray xaafadaha ayaa wuxuu u samayn jiray furaashadii berigii hore lagu seexan jiray cudbi baa lagu cabayn jiray marka furaashka cudbida lagu cabeeyo marka muddo lagu seexdo way isku dhigi jirtay hadhow inta mara cusub la soo iibiyo ayaa cudbida laga furaya cudbidii marka waa la feedhaya waa la garaacaya markii kala furfurato ayaa maradii cusbayd lagu xidhi jiray deedna dib baa loo moorin jiray lacag buu ka qaadan jiray marka shaqadiisu intaas ay ahayd jimankana wuu la shaqaysan jiray ninkaas oo xaqiiqo dhacday weey deedna ninkaas wuxuu sameeyay wambu suuqa inta saylada waxay halkan imika tiyaatarka halkan tiyaatarku imika ku yaalo baa saylada Hargeysa ahaan jirtay intuu halkan tagay buu wan soo iibiyay oo rabay inuu u qalo shayaatiintiisa wankii oo ugu xidhnaa geed waa la gooyay ku haryaalay maxaan ku dhahay dukaanadaas ayaa waxa soo gashay jimca barxadlihii oo waxa jiri jirtay sanadkii hal mar baa waxa maxaan ku dhahay Sheekh Yuusuf al-Kawnayn raxmatullaahi alayh ayaa dadku ku aafiisnaayeen oo la siyaaran jiray oo la tagi jiro maxaan ku dhahay wax lagu qalqali jiray oo halkaas lagu dhafri jiray 3 maalmood wankaas wuxuu damcay inuu markaa halkaa geeyo wankii oo u xidhan waxaan ka qaldan nimankan uu rabay inuu gowraco jimca barxadlii baa soo galay dabeedna wuxuu geeyay halkii maxaan ku dhahay qabriga uu gowracay uu iskaga soo noqday guriga kelidii baa degan hoostu ka xidhay deedna waxa ay u imaadeen famalayd waxa la yiraahdo laga sameyn jiray aqalka dushiisa oo famalaydkii baa uga soo daateen way toosiyeen isagoo hurda markaas ay ku yiraahdeen wariyaahe wankii aad noogu ballan qaaday markaas uu yiri waxaan go'aansaday wankaana inaan halka ku gowraco idina wan kale aan idin iibiyo markaas waxay yiraahdeen wankii aad naga bixisay baridiisa wan baridaasoo kale leh ifkaba ma joogay maxaad yeeli wankii aad bixisay ee annaga nagu hunguri gelisay ifkaba ma yaala baridiisa wax leh haye waxay yiraahdeen maxkamad baa lagu saaray aad ka maqan tahay adoo ka maqan ninka nala socdaana waa dhakhtarkii waa dhakhtar waxa uu ninkii wada shaqaysanaysan wacadka wada gashay wuxuu go'aamiyay inta ili kugu taalo dhan laga saaro dhammaan dhowr iyo 30kii iligba dhulka laga dhigay xabadigi kama iman ninka xabad intii ilkooda laga soo saaray aroortii buu toosay dhowr iyo 30kii ilagoo miiska u saaran xabadigina kama iman muddo markaa ilkala ilaa bil deedna ambiil baa loo qaaday maxkamadii baa ambiil u qaaday waxay yiraahdeen ninkan ilkaha loo geliyo ilaa ilkiisi hor lagu celin karo ilkaha loo geliyo way yimaadeen waxay yiraahdeen wariyaahe maxkamadii ambiil baa lagu qaaday waxa la go'aansaday in ilka saqaf lagu geliyo waan soo baayacnay marka wax ilkaha hagaajiyeen berbere kaliya jirta Hargeysa waxaas ilkaha ulguma yaqaano berbere kaliya lagu sameeyaa waxay yiraahdeen waan soo qiimeynay sadafka ilkaha waxay noqotay 6 shilin bay noqotay 600 shilin ayay noqotay 600 shilin wakaas noolkaagi go'an baak wakaas dhaqaaji orad ilkaha berbere ka soo gasho sidii markaa ninkii ilka saqafa kula haan jiray dabadeedna ku halaagsay markii dambe marka haddii bahaladan aad baabkooda gasho waan ka warramaynaa albaabkooda sida loo garaaco albaab la galay leeyihiin laakiin lagama bixi karo albaabkooda lagama bixi karo